waxyaabo qofka ka saacidi kara inay xasuustiisu wanaagsanaato iyo sidoo kale waxyaabo keeni kara in xasuusta qofku ay hoos u dhacdo. Haddaba inagoo xagga dambe ku sheegi doona arrinta ugu muhiimsan ee xasuustaada iyo maskaxdaadaba wanaajin karta. Haddana waxaynu soo qaadanaynaa qodobo ay xeeldheerayaasha caafimaadku sheegeen inay ka qayb qaataan in xasuusta qofku ay wanaagsanaato, kuwaasoo kala ah cabbitaanka biyo badan oo jidhkaagu helo, iyadoo khabarada caafimaadku sheegtay in maadaama jidhkeennu biyo u badan yahay, mar kasta oo jidhkaaga biyuhu ay ku yaraadaan inay hoosna u dhici karto xasuusta maskaxdaadu. Waxaa kaloo iyaguna qayb ka qaata wanaajinta xusuusta inaad cunto cuntooyin isku dheelitiran, gaar ahaan cuntooyinka ay ku badan yihiin faytamiin B12. waxaa kaloo iyaduna ka mid ah inaad seexato waqti kugu filan si maskaxdaadu u nasato. waxaa kaloo iyaduna xusuusta qayb weyn ka qaadata inuu qofku lugeeyo si joogta ah ugu yaraan maalintii 3 kiiloomitir, iyadoo lugtu ay jidhka u leedahay caafimaad weyn, sidoo kalena ay ka qayb qaadato habka wareegga ee dhiigga, taasoo sahlaysa in unugyada dhiigga ee maskaxda geeya ay si fiican u shaqeeyaan. waxaa kaloo iyaguna qayb ka qaata wanaajinta xusuusta maskaxda khudaarta ay ka mid yihiin basasha cas, tufaaxa, tamaandhada ama yaanyada, cinabka iyo sabiibka. sidoo kale waxaa iyaduna arrin muhiima u ah xusuusta maskaxda dhimista miisaanka jidhka, iyadoo mar kasta oo qofka miisaankiisu uu kordho ay sababi karto inay yaraadaan xididada dhiigga ee maskaxda tegaya, taasina ay keeni karto dhaawac maskaxda soo gaadha. waxaa kaloo iyaguna xasuusta maskaxda khatar ku ah balwadaha uu ugu horeeyo cabbitaanka sigaarku, iyadoo la xaqiijiyay in sigaarku dhaawac weyn u geysto qaybta xasuusta ee maskaxda.